bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka TV-ga Somsad oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare kala duwan geystay ayaa waxa lagu weeraray baaliyaasha iftiinka bixiya ee ku yaala magaalada Muqdisho musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay magacaabista golaha wasiirada ee Puntland iyo wax ka bedelka xeeroosaadka Somaliland siyaasi Xasan Xuseen oo ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga UCID ayaa ka jawaabay eedeymo uu gudoomiyaha xisbiga UCID u soo jeediyay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Somaliland dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in mar kale ay al-shabaab weerar ka geystaan gudaha wadanka Kenya jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Birmingham ee dalka Britain ayaa waxa ay tacsi u direen dhammaan Soomaalida degta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan eheladii uu ka geeriyooday Garaad Maxamuud Garaad Dool Garaad Xirsi oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga dood cilmiyeed looga hadlayay mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoona ay ka qayb galeen siyaasiyiin magac ku leh Soomaaliya intaas daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobadii warkeena ugu door corona goordhow waxa daawad doontaan warkan iyo warar kale oo faahfaahsan hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada